wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya oo booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa wada hadallo la yeeshay madaxda maamulkaasi oo ku jiro Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland. kulankan ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ku jiraan ammaanka, horumarinta dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga. waxa uuna ugu baaqay dhammaan qaybaha ku lugta leh arrimaha Jubbaland inay si wadajir ah uga shaqeeyaan in la hubiyo hanaanka doorashada si wanaagsan loo maro lana raaco qawaaniinta oo la iska dhaafo dabeecadaha keeni kara khilaaf ama hagardaamo hanaanka doorashada. doorashadu waa in u dhacdaa si nabadgelyo ah, waqtigeeda ay dhacdaa, faragelin la'aan waa inay dhacdaa, ayna noqotaa mid xur ah oo cadaalad ku dhacdaa, raalina laga wada noqdaa, ayuu yiri Mr. James Iswan war qoraala uu soo saaray. Iswan ayaa cambaariyay weerarkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Kismaayo, waxa uuna sheegay in weerarkaasi aanu waxba u dhimi karin hanaanka nabadda Soomaaliya. Cabdi Casaar Guuleed, Shabeelle TV.